waxaynu intu badan maqalnaa mid ka mid ah xubnaha qoyska ama asxaabta oo ay dhakhaatiirtu ka soo sheegeen dhagaxaanta kilyaha ama kaadiheysta. Su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, waa maxay dhagaxaanta lagu arko kilyaha, kaadiheysta iyo tubooyinka kaadida ka soo qaada kilyaha? Maxaase ku garan kartaa haddii aad leedahay dhagaxaanta? Maxaa sababo? Sideese lagu hortegi karaa? Iyo weliba daaweynta. Guud ahaan muuqaalkan ayaan uga hadli doonaa haddii uu eebba noo ogolaado. Haddaba intaan u gudagelin, waxaan si gaar ah kaga codsanaa in aad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. Sidoo kale xagga hoose ka bac qaar ka mid ah asxaabta ama xubnaha qoyska si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalkan. Dhagaxaanta mararka qaar lagu arko qaybaha ka mid ah jirkeena sida kilyaha, kaadiheysta iyo tubooyinka kaadida ka soo qaada kilyaha way ka duwan yihiin kuwan caadiga ah oo maalin walba aan dhulka ku aragno oo ka samaysan ciid iyo macdamaha kale. Kuwan waa dhagaxaan aad u jilicsan, waxayna ka samaysan yihiin macdinta laga helo kaadida iyo jirka. Inta badan waxayna ka helnaa cuntooyinka aynu cunno. Dhagaxaantaas way kala duwan yihiin, waxaana ugu caansan 4 nooc oo kala ah calcium oxalate, uric acid stone, strontium stone iyo cystine stone. Waxa ugu caansan amaba bulshada intooda badan lagu arkaa calcium oxalate. Kuwa kale way yar yihiin, bulshada waa lagu arkaa, waa rare waayo. Waxa aad ugu sii yar cystine stone, inta badan lama arka asiga. balse waxa caan ah oo bulshada intooda badan lagu arkaa calcium oxalate ayaa lagu garan kartaa haddii aad leedahay dhagaxaanta kilyaha ama kaadiheysta. Waxaa suurtagal noqon kara inaysan wax calaamadaha ay ka soo muuqanin kolkay dhagaxaantu aad u yar yihiin oo waxay si fudud u soo raacayaan kaadiheysta. Wax calaamadaha kama soo muuqanay, balse mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad isku aragtid calaamado ay ka mid yihiin xanuun aad u daran oo aad moodid in wax lagu muday ama wax lagu duray aad moodid oo aad ka dareentid dhinac ama dhabarka qaybihiisa hoose. Sidoo kale waxaad mararka qaar isku arki kartaa xanuun ku sii baahaya qaybaha hoose caloosha ama gumaarka, xanuun ama gubasho xilliga aad kaajaysid ama xilliga kaadida. Sidoo kale waxaad isku arkaysaa xanuun isbedbedelaya oo hadba dhinac aad ka dareentid. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in mararka qaar uu dhagaxa u gurguuro oo meesha u guuro aad ku aragtid xanuunka ama aad ka dareentid. Sidoo kale waxaad isku aragtaa kaadida ama isku arki kartaa kaadida oo dhiig soo raacdo ama midabka kaadida oo isbedesho oo yeelato midab casaan ah ama brown ama midabka pinkiga oo kale wax u shabaha kale ayay yeelanaysaa. Sidoo kale kaadidu waxay yeelanaysaa ur qarmoon ah. Sidoo kale qadarka kaadida oo yaraata ama badata lalaba iyo matag. Sidoo kale haddii infection uu jiraan waxaad isku arkaysaa xumad aad u dadan ama xumad ziyaada ama qandho ziyaada ayaad isku arkaysaa. Isweydiinta mudan waxay tahay, maxaa sababo ama keeno dhagaxaanta kilyaha? Ma jiro sabab la hubo ama waxyaabo si gaar loogu aaneynayo, balse waxaa jiro waxyaabo qaar oo ka qayb qaadan karo in kilyuhu ama kaadiheysta ay ku samaysmaan dhagaxaanta kilyaha amaba ay si fudud ugu samaysmaan. Waxaa ka mid ah fuuqbaxa ama dadka aanan qaadanin biyaha ku filan. Qofku waxaa loo baahan yahay inuu cabo ugu yaraan 3 litir oo biyaha maalin walba. maxaa yeelay jirku si fudud ayay ugu baxayaan, kilyuhu si fiican ayay u dhaqayaan wasaqdana dibadda ayay si fudud ugu saaraan. Haddii uu aad u yar yahay xaddiga biyaha ama qadarka biyaha aad cabaysid, waxaa laga yaabaa in kilyahaadu ay ku samaysmaan dhagaxaantaas. Sidoo kale caabuqa ku dhaca kaadiheysta iyo kilyaha haddii qofka uu iska daweyn waayo ama xilli hore la daweyn waayo, waxaa suurtagal noqon kara in kilyahaadu ay ku samaysmaan qayb ka mid ah dhagaxaanta ku samaysma kilyaha iyo kaadiheysta. Sidoo kale waxaa keeni karo ama loo aaneynayaa cuntooyinka ay ku badan yihiin borotiinka, sodiumka, milixda iyo sokorta. Guud ahaan cuntooyinkaas waxay ziyaadin karaan ama ay sababi karaan in kilyuhu ay ku samaysmaan ama ay ku abuuraan dhagaxaantii aan ka soo hadal. Buurnida
amaba cayilka badan iyo dadka fadhigooda uu badan yahay oo aan iska saarin dhididka badan. maxaa yeelay qofku waxaa loo baahan yahay xitaa haddii aad biyo badan cabto maalin walba, waxaa loo baahan yahay in biyahaas aad jirkaaga ka saartaa oo aad jimicsi badan samaysaa. jimicsiga faraha badan caafimaad badan ayuu leeyahay, jirkaaguna wasaqdi wuu ka saaraya oo wuxuu ka mid yahay siyaabaha jirkeena oo qashin saarka isaga sameeyo oo jirka isku nadiifiyo dhididka. aad ayay muhiim u tahay. sidoo kale haddii ay xirmaan ama blockage ku yimaado tubooyinka kaadida soo marto, iyana dhagaxaantu waxay isku aruursanayaan. meesha kaloo muhiimka waxay tahay sidee lagu hortagi karaa dhagaxaantan aan kasoo hadlaya ama dhagaxaanta ku samaysma keliyaha, kaadiheysta iyo tubooyinka kaadida kasoo qaada keliyaha. sidee lagu hortagi karaa? qodobka ugu horeeyo waa inaad biyo badan cabtaa, ugu yaraan 3 litir oo biyaha maalin walba inaad cabtid. maxaa yeelay biyahaas badan waxay keenayaan in jirku ay ka sifeeyaan amaba ay ka baxaan waxyaabaha keena dhagaxaantaas. sidoo kale looma baahna keliya inaad biyo badan cabtid aad fadhiisatid, taasna xaaladaada caafimaad ayay khatar gelin karaa. qofku waxaa loo baahan yahay in biyuhu markuu cabo inuu iska saaro, uu sameeyo jimicsi sida rucleynta iyo orodkoo kale ayaa loo baahan yahay si uu u dhidido. sidoo kale waa in aad miisaanka jirkaaga aad dhintaa. haddii aad tahay qof buuran, waxaa loo baahan yahay in miisaanka jirkaaga aad normalkiisa ku haysid. haddii aad doonaysid inaad ogaatid inaad buuran tahay iyo inaad normal tahay iyo inaad miisaankaaga uu hooseeyo, waxaa jira muuqaal aan kaga hadlay BMI-ga ama body mass index. youtube-ku waad ka helaysaa, halkaas ayaad ku ogaan kartaa inaad tahay qof buuran, inaad tahay qof caatay iyo inaad tahay normalka halka laga doonayo qofka ibni aadanka markii loo eego dhererkiisa. youtube-ka ayaad ka daawan kartaa. sidoo kale waa inaad ka fogaataa cuntooyinka ay ku badan yihiin borotiinka xad-dhaafka. sidoo kale waxaa kaloo waa inaad ka fogaataa cunooyinka milixda ay ku badan tahay amaba sokorta, iyana waa inaad ka fogaataa. iyo cuntooyinka ay ku badan yihiin maadada sodiumka, iyana waa inaad ka fogaataa. kadib maxaa lagu daweeyaa dhagaxaanta keliyaha? daaweynta waxay ku xiran tahay hadba dhagaxaanta xajmigooda. haddii ay yar yihiin ama dhagaxaantu wax yaryar ay yihiin, dhakhaatiirtu qaar talooyin caafimaad ayay ku siinayaan sida inaad biyaha badan aad cabto ama jimicsi aad samaysid iyo guud ahaan talooyinkaan hadda soo sheegay. haddii aad daawooyin u baahan tahay, waxaa jiro daawooyin dhagaxaanta burburiyo. balse haddii dhagaxaantu ay badan yihiin amaba iyo xajmigoodu aad u waawen yahay, dhakhaatiirtu waxay ku diri doonaan qalin iyo habab kale ama procedure kale ay dhakhaatiirtu markaas ay u arkaan in xaaladaada caafimaad lagula tacaali karo. fadlan ha iloobin inaad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran ama xubnaha qoyska si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka like saar, page-kan follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. sidoo kale xagga hoose kabac qaar ka mid ah asxaabtaada. intaasaynu kusoo gabagabaynayo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi